madaxweyne xasan sheekh maxamuud haddii uu qaato go-aankan isaguna waa inuu isku diyaariyaa dhammaadka mustaqbalkiisa siyaasadeed. qaar ka mida saaxiibada madaxweynaha ayaa u biritumanaya in ra-iisul wasaare xamse cabdi barre meesha laga saaro oo la rido isaga iyo xukuumaddiisa. madaxweynuhuna indhaha ayuu ka daawanayaa. shaki waxaa jira in villa Soomaaliya ay raalli ka tahay in ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa la rido kadib socdaalkii madaxweynaha ee dalka Jabuuti. muxuu Ismaaciil Cumar Geelo u sheegay madaxweyne xasan sheekh maxamuud marka laga hadlayo arrinta ra-iisul wasaare xamse? haddaba muuqaalkan ayaan kugula wadaagayaa macluumaadka jira iyo sidoo kale waxa la isku haayo iyo dhumucda madaxweyne xasan sheekh maxamuud sheekadan uu kaga jiro. soo dhawaada saaxiibayaal, idinkuna aragtidiina la wadaaga qayb ayaad ka tihiin barnaamijka. sida aad la wada socotaan, qaar ka mid a saaxiibada madaxweynaha ayaa horboodaya mooshinka ka dhanka ah xukuumadda ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo la sheegay in iminka ay saxiixeen in ka badan 120 mudane oo ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. kuwaasi waa qaar ka mid a saaxiibada madaxweynaha, waxaana la sheegay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uusan ilaa iyo iminka kala hadlin inay joojiyaan mooshinkan ay karkarinayaan ee Nairobi iyo Muqdishoba lagu diyaarinayo. laakiin maxaa dhacaya haddii ra-iisul wasaare xamse cabdi barre iyo xukuumaddiisa la rido wakhtigan xasaasiga ah oo bilo kooban ay ka harsan tahay mudaxileedka dowladdan? marwo fertility center, xarunta ugu fiican daaweynta cudurrada keena dhalmala'aanta rag iyo dumarka. nagu dooro daaweyn, qalliin iyo bacriminta IVF. waxaan kula jirnaa ilaa aan dhabta kuu saarno ubad ilaahay idankii. sida laga bartay siyaasadda, marka wakhtigan oo kale la gaaro, haddii madaxweynuhu uu ogolaado in meesha laga saaro ra-iisul wasaaraha, gaar ahaan ra-iisul wasaare si gaara ula shaqeynaya, weliba marka laga hadlayo xamse cabdi barre muddo 3 sano iyo bilooyin oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay wada shaqeynayaan, marnaba lama soo warin khilaaf isaga iyo madaxweynaha iyo hal qodob oo isku diideen oo ay ku kala tageen labada nin. dhammaan qodobadii siyaasadeed ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu soo bandhigayay ee aragtidiisa ahaa ra-iisul wasaare xamse waxa uu u qaatay si toosa, isaga iyo xukuumaddiisuna waxa ay fulinayeen 3 sano iyo bilooyinkii lasoo dhaafay aragtida iyo rabitaanka madaxweynaha. laakiin haddii madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ogolaado in baarlamaanka iyo saaxiibadiisuba ay ridaan ra-iisul wasaare xamse cabdi barre, isaguna waa inuu isku diyaariyaa dhammaadka mustaqbalkiisa siyaasadeed. sababtu maxay tahay? sidaad la wada socotaan, ra-iisul wasaare kasta oo wakhtigan gabaabsiga la magacaabo wuxuu sabab u noqdaa in madaxweynihii isaga magacaabay meesha laga saaro ama uu ka baxo. kadib iskhilaaf iyo ishaysi dhasha waxaa awoodda ugu badan qaata ra-iisul wasaaraha, maadaama mudaxileedka madaxweynuhuna dhammaanayo, sidoo kalena baarlamaanka wakhtigiisa uu dhammaanayo oo aan la heli karin fursad iyo mooshinno lagu rido ra-iisul wasaaraha mar labaad. nuur cadde ayaa la magacaabay wakhtigii dowladda oo gabaabsi ah, waanaad ogeedeen isaga iyo cabdulaahi yuusuf labadoodaba allahu raxmadee wixii dhex maray oo ugu dambeyn sababtay in madaxweyne cabdulaahi yuusuf uu iscasilo. sidoo kalena madaxweyne sheekh shariif ayaa wakhti gabaabsi ah magacaabay ra-iisul wasaare cabdiweli maxamed cali gaas. waa ogtihiin wixii dhacla idinkaga sheekeyn maayo. sidoo kale xasan sheekh maxamuud ayaa mar labaad magacaabay cumar cabdishiid cali sharmaake. waa la socotaan, tii ugu dambeysa waxay ahayd markii madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu magacaabay maxamed xuseen roble ra-iisul wasaaraha dalka, iyadoo oo bilooyin ay ka dhiman yihiin wakhtiga xukuumadda, sida weliba wakhtigan oo kale markii la joogo. laakiin wixii dhacay dadka Soomaaliyeed, weliba inta xataa gadaal ka barata siyaasadda, dhammaantood goobjoog ay ahaayeen. waxa dagaal dhex maray ishaysigii madaxweynaha ra-iisul wasaarahana waxay fursad u noqotay mucaaradka oo awoodeystay, taasoo sababtay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud dib loo doorto. waafi waa saaxiibkaaga safarka iyo dalxiiska. haddii aad ku nooshahay qurbaha, waxaad ku soo wici kartaa ehelkaaga iyo asxaabtaada ku sugan dalka, miyi iyo magaalaba. ka iibso waafi app xirmooyinka jaban ee usbuuclaha ama bilaha ah. waafi app kala soo deg Play Store ama App Store. hadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo xukuumaddiisu way ishaystaan. mucaaradka iyo dhammaan dadka daneynaya kursiga madaxweynuhuna waxay raadinayaan fursad iyo galaangal ay ku helaan in dowladda la dhex galo. hadda saa la wada socotaan, gadaha dhihin meesha la yidhahdo laascaanood ha dhihin, dowladdii ayaa shaqooyin wado oo weerara. wakhtigan oo kale dowladdu waxay ahaan jirtay difaac iyo in iyada si weyn loo mucaarado.
laakiin mucaaradnimo ma jirto weerar laguma aha iyadaaba hadda dowlad goboleedka qaar cadaadis weli saarayso iyadoo waqtigeedii dhammaad yahay dowladda taasi maxaa sababaha wada shaqaynta madaxweynaha ra-iisul wasaaraha ayaa sabab u ahaa laakiin haddii xamse cabdi barre oo meesha ka baxo waa dhammaadka madaxweyne xasan sheekh maxamuud meel iga sii qur-aaniga aad iyo aad baa umahadsantihiin saaxiibayaal idinkuna maxay idinla tahay aragtidiina la wadaaga muuqaalkana leegno saaro sii shargarey waa mahadsantihiin saaxiibayaal